بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. marka koowaad qorshaha aan kelimadeena aan usoo duubno waxay tahay digniin nasiixo wadata aanu u dirayno sheekha weyn ee caanka ee Soomaaliga Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo macruuf ka ah geeska Afrika haddana degan Nairobi. digniintaas nasiixada wadata marka koowaad waxa weeye waxay ku saabsan tahay hadalkii isagu ka yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam oo culimo badan iyagoo og ay ka aamuseen. culimadu way ogaanayaan xadiidka sheekhu daliilsaday ee uu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam in injir laga gurayay xadiidka saxiix muslim ku yaalay ee umu xaraam gabadha la yidhaahdo ay nabiga calayhi salaatu wasalaam umu xaraam bintu milxaan oo umu sulaym bintu milxaan la dhalatay nabigu gurigeeda inuu seexan jiray calayhi salaatu wasalaam. dabeedna gabadhii ay nabiga timihiisa tafriqu shacra ra'si inay kala qaadqaadaysa ama kala siibaysay yacni madaxa timaha madaxa oo timuhu markay isku maran yihiin marka la kala furfuro oo shaygu tafriiq lagu sameeyo tufariq shacra ra'si. midna waxaa weeye tabxath ama taftish ama taftiish sida qaar ay qoraan kutubta qaar alqumal can ra'si qumal yani injir in madaxa laga baaro. labadii micno ee uu lahaa loo adeegsan karay eedadii ahayd xagga nuugmada oo aabihii ay naas la nuugtay calayhi salaatu wasalaam. marka gabadha uu gurigeeda jiifay sala allahu calayhi wasalama xadiidku wuxuu anagu sheegayaanu rumaysannahay inay nabiga madaxiisa shallaynaysay ama timihiisa oo isku dheganaa ay kala furfuraysay, laakiin injir bay ka guraysay oo weliba markii lagu qabsaday umal uu sii dooday oo la yidhi arrintan waxaa weeye arrin iska caadiya nabiga injirta waa lahaan jiray. arrintaasna ay tahay nuqsaan ama gaf loo geysanayo cirdiga nabiga sala allahu calayh wasalam. ninka odaga sheikha la yaqaan waxaan leenahay ilaahay u toobadkeen, ilaahay u toobadkeen oo ha ka kibrin inaad ilaahay u laabato. in aad khaldantay caddee oo masalada saan ay kula noqotay laakiin sidaana loo dhigi karay. ilaahay ka baq oo laba arrimood laba sababoodba u yeel. marka koowaad dan naftaada u cabso oo aakhiradaada u cabso. marka ka cararay markii dambena xataa madiina uu isku haleyn waa inuu gaaro dhexda inta ka leexday iyo ciraaq u cararay. wakiic caalim min culamaa almuslimiin ataabiciin haddiiba arrintaas uu ku sigtay
masale uu ta'wiilsaday oo laga yaabo inuu nin saxaabiya ka maqlay, adiga xaggee baad joogtaa? ilaahay ka baq. maxamed cabdi umal caan baad ahayd geeska afrika. laakiin midda nebiga ku saabsan calayhi salaatu wasalaam, ilaahay uga baqo toobadkeen. dadku way yaqaanaa nebigooda udgoonu rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka koowaad, marka lafahaaga uga cabso cadaabka ilaahay, oo ha fududaysanin inaad nebiga cirdigiisii si fudud adoo muta'awila aad wax ka sheegto, oo wax adigaba aan kuu cuntamin shiikhow aad ku tilmaanto nebiga calayhi salaatu wasalaam. waa digniinta koowaad oo aan rabo naftaada inaad cabsi cadaabka ilahi uga cabsato. midda labaad, waxaan ku xasuus dibadda iga soo wacay baa waxay ii sheegeen arrintaa markii ugu horreysay oo uu ku hadlay umal, oo waxay yidhaahdeen awal waxaan rabnay inaan salafiyiinta ku biirno, laakiin hadda waxaan ogaanayba nebiga inaad col u tihiin. maxaad ka wadiin markaan idhi? waxay tidhi gabar habeennimo ila hadlaysa, taleefon dibadda iga soo dirtay. shiikhiinnii culimmadiinnii ugu waaweynayd baaba nebiga aflagaadaynayse haddaan daawanaya nebiga isagoo injir ku tilmaamaya. minin nebiga caayadan anigu culimo ahaan u daba fadhiisanaya. iga tag bay tidhi, suufiyadaydii baa idin dhaantoon ku noqonayaa. ma aha qabuuriyiintu nebiga inay jecel yihiin, waan ognahay. hadday nebiga jecel yihiin, kii gaalkacya ku dhintay ayuu markuu nebiga aflagaadeeyey ka hadli lahaayeen, ka qaylin lahaayeen. iska dhaaf inay wax ka sheegaan oo ay la dagaalamaan ama ay colaadiyaan ama ay radiyaane. waxay odhan jireen cilmi baatinkuu yaqaanaa. nin cilmi baatin yaqaano weye, markaa waxyaaba aanan ogeyn buu og yahay. marka waan ognahay inay nebiga jacayl ay u qabaan uusan jirin, laakiin shirkigoodiiba difaacayaan, tawxiidkiina waa colaadinayaan. waxa ay ku soo gabadeenna waa hadalkaagii oo injir ah inaad nebiga ku tilmaanto. wallahi kaa yeeli mayno, wallahi kaa yeeli mayno. sheekh ilaahay u toobadkeen. masaladaas ilaahay dartii uga laabo, qir inaad ku khaldantay, dadkana ka raalligeli, fursadna ha siinin acdaada tawxiidka iyo mushrikiinta. dhanka kale wixii ictisaam iyo mabaadida ictisaam iyo siyaasadda dheh gasheen iyo howlahaasna anu hadda ka hadli maayo, laakiin masaladan kala hadlayo waa arrinkaas wey. waxaan nebiga arrinkiisa ka leeyahay calayhi salaatu wasalaam. nebigu sala allahu calayh wasalam waasna waa udgoon oo atyaba ka udgooni iyo caraf badan min raa'ixati rasuuli illaahi, nebiga udgoonkiisa calayhi salaatu wasalaam. nebigu sidaasuu u odgeeyey sala allahu calayh wasalam. bal axaadiidka qaar waxay sheegayaan saxaabadu inay yidhaahdeen nebigu isagoo na ag maraya annagoon arkayn baan garanaynay in nebigii na ag marayo udgoonka darti uu carfayo sala allahu calayh wasalam, isagoona catarba ismarin. dhididkiisaa udgoon ahaa. guriga nabigu iman jiray waana seexan jiray buu yidhi.
sala allahu calayh wasalam markaasay umu saleem waxay aragtay maalin nebiga oo dhididay oo gurigii jiifa waxay bilowday yacni inay dhididkii ay soo maro ku tuujiso oo maro ku tirtirato dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dabcan maqaar baa dhididkiisa ku daatay meesha ku yaallay fastayqada nabiyu nebigaa toosay calayhi salaatu wasalaam faqaala yaa umu sulaym oo dhankii ugu udgoonaa weeye riwaayad kaleso saxiix muslimka ku taallana wax markuu weydiiyo waxay leedahay carruurtannadaan yani u marinaynaa waana ka barakaysanaynaa rasuulkii allow narju barakatahu lisibyaanina ilaa uu nebigu ku yidhi asabti waad asiibtay si fiican baad yeeshay dhididkiisa calayhi salaatu wasalaam sidaasu ah timihiisii aanu usoo gudubna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi anis wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuulu llahi calayhi salaatu wasalaam rasuulkii allaan arkay walxallaaqu qof gacantiisa inay ku dhacdo mooye wuu ka barakaysanaya qof walba timaha nabiga calayhi salaatu wasalaam timaha nabiga laga barakaysanayay arrinta nebiga saasa oo timihiisii iyo jismigiisii iyo dhiiggiisiiba waxaan dhihi lahaa dhididkiisii laga barakaysanayo salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi inaad ku tilmaanto wax wasakh micnaha ay ka dhalato injirta wasakh bay ka dhalataa waa wada naqaanaa xataa haddii adiga ay kula noqoto masale muta'awil aad ku taho ta'wiilku aanad ilaahay uga laaban ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala cid kastoo nebiga u qiiroonaysa waxaan ilaahay ka baryaynaa masiibo aadan filayn ilahay inuu kugu rido dhanka kale umal keliya ma ahan ciddaanu la hadlayn waxaa jira shiikh kale oo doctor caana muqdisho jooga oo laga yaabo dadka qaarkii inaanay ku baraarugsanayn oo 1999 taariikhda milaadiyada isagoo jooga masaajidka sheekh cali suufi nebiga si calaaniya ugu gafay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waa doctor dusuuqi marka gefkii iyo aflagaadada uu nebiga u geystay weliba 8 maarsu ka hadlayay maalin gaaladu ay weynayso oo asalka 8 maars waxay ka soo jeedaa waddanka ruushka waxaana aasaasay valadimir ivanovich lenin ninkii la odhan jiray ninkaasaa wuxuu ka dhigay maalinta haweenka rushiya ama sofiyeetka kadibna 1945 ayaa waxaa la keenay 8 maars united nationka oo laga codsaday in laga dhiga maalin caalamiya aga dhacay gaf buu ahaa marka waa ka laabanaya si calaaniya oo dad badan arkayaan oo masaajid u fadhiyo kitaab akhrinayo ayuu nebiga ugu gafay si calaaniya oo bannaanka taal oo cilaanka loo soo bandhigo waa inuu ku toobad keena saasaan kula talinaynaa dusuuqi wuu garanayaa maanta si fudud si habka maanta uu dadka ugu qanciyo dad oo dhan baa maqlay kuwaan ogeynna hadda ha maqlaan gafka uu u gafay nebiga calayhi salaatu wasalaam guursigii uu guursaday
aan kula dardaarmayaa inay difaacaan cirdiga nebiga afkooda iyo adinkooda inay ku difaacaan cirdiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaa adigu difaaci weydana rabbigiisaa difaacaya allah yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga filan nebi allow kuwa kugu jeesjeesaya oo alla kaloo yidhi wa rafacnaa laka dikraka sharaftaadii baanu kor u qaadnay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa nebigiisa sharfay yacni xayan wa mayitan nolol iyo geeriba ka yeeli mayna ilaahayna raalliga ka yahay subxaanahu wa tacaala waxaan dadkoo dhan nin kastoo nebi maxamed rumaysan sala allahu calayhi wasalama xasuusinayaa inay shardi ku tahay tawqiirka ama weyneynta iyo sharfidda nebiga weyneyntuna ma ahan mawliidka ay la boodboodaan shiicada iyo qabuuriyiintu kaas waa caqiide iyo diin kale ay samaysteen weyneynta nebiga iyo sharfadiisa waa amarkiisaoo la raaco daacadiisa